cisbitaalkan oo ku yaala Pretoria waxaa eegaya dhammaan indhaha adduunyada. boqolaal suxufiyiin ayaa jooga halkan oo doonaya inay ogaadaan wararka la xiriira xaaladda caafimaadka madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson Mandela oo takhaatiirtu kala tacaalayaan xanuun xagga sanbabada ah kadib markii la sheegay in xanuunkiisu uu daran yahay. madaxweyne Jacob Zuma ayaa kamid ah madaxda booqatay cisbitaalka Nelson Mandela waxaana uu warbaahinta uga waramay xaaladda caafimaadka ee laga dayrinayo ee Nelson Mandela waxaana uu bixiyay xog yar oo ku saabsan caafimaadka madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika. Former President Mandela remains in a critical. madaxweynihii hore ee Mandela waxa uu ku sugan yahay xaalad adag gudaha cisbitaalka. dhaqaatiirtu waxay sameynayaan wax kasta oo ay awoodaan oo suuragal ah si ay u hubiyaan caafimaadkiisa. adduunyada oo dhan ayaa sugaysa wararka la xiriira caafimaadka Nelson Mandela waxaana madax badan oo caalamka ah ay si toos ah ula socdaan wararka ka soo baxaya dawladda iyo cisbitaalka uu ku jiro Nelson Mandela. waxaa sidoo kale toddobaadkan booqan doona dalka Koonfur Afrika madaxweyne Barack Obama Mareykanka sida uu sheegay Zuma oo yiri booqashada Obama uu ku imanayo wadanka Koonfur Afrika ma saameyn doonto xaaladda caafimaad ee Nelson Mandela. Mandela waa halgame lagu xusuusto dagaalkii uu la galay xukunkii midab kala sooca ku dhisnaa ee ka jiray dalka Koonfur Afrika waxaana uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay markii ay xorowday Koonfur Afrika.